waqooyi bari TV. Faysal Cabdi Ismaaciil Samatra ayaa waxa uu falaqeeyay kulanka dalka Djibouti ku dhex mari doona madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Professorka oo la hadlay idaacadda BBC-da ayaa waxa uu eedeymo u jeediyay madaxda labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. wixii keenay Allah og iyo dadka ka dambeeya iyo dowladda Djibouti waxaan saas leeyahay waxa weeye sidaad sheegtay xasanow dowladda xamar ka talisaana waa gabagabo ta kalena kama sii foga oo qudheedu way daciif bay tahay marka waxaan rajaynaynaa ilaahay inaan ka baryanaa gabagabada ay yihiin inay ka soo baxaan wax dadka Soomaaliyeed meesha joogaanba jooga u qalma hase yeeshee waxa weeye su'aalahan isweydiinana waxa weeye maxaa ka soo bixi kara maxaan ka soo bixi karin maxay dadka Soomaaliyeedna sugayaan saddexdaas su'aalood ayaan isleeyahay way maareyn doonaan waxa meesha ka socda walaal maxay kula tahay waxa ugu muhiimsan ee laga wada hadlayo ama ay tahaba in xilligan laga wada hadlo waxa laga wada hadli doonaa guntooda kuma jiro ma ogi laakiinse waxay u eeg tahay magaalada Muqdisho dowladda ka talisa waxay iyadu maskaxdeeda ku jirta in ninka Muuse Biixi la dhahay madaxda Hargeysa ka ah in la maamuuso mansabad sare la siiyo dowladda isagu maybe uu soo dhiso qaarkood siday ka hadlayaan laakiinse waxay ku khaldan yihiin waxa weeyaan xurgufta ka taagan Hargeysa iyo waqooyi ama Soomaaliland maba qolooyinka ka imanaya Hargeysana waxa weeyaan yaan laynagu eedayn iyo ka wax diiday laakiinse u malayn maayo wax qancin kara dadka reer waqooyiga iyo dadka koonfurta Soomaalida ah inay iyagu qudhoodu keeni doonaan walaal Professor sidaynu ognahay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland waxa ay soo mareen marxalado kala duwan meelo kala duwan ayaa lagu qabtay wadahadalkan hadda maanta ka furmaya Djibouti maxuu kaga duunaan karaa kuwii ka horeeyay ilaahay wax walba wuu kari karaa oo waxaan kuwii hore ka soo bixi karin baa ka soo bixi kara laakiinse waa inaynu fahamnaa siday dowladnimada u shaqayso haddii xataa waxay ku heshiiyaan wanaaga waa in Hargeysa la geeyaa waa in xamar la geeyaa ilaan baarlamaanaha jira labada meeloodba baarlamaanadaas ma ogolaan doonaan labada qof waxay doonayaan ma samayn karaan waxay keeni karaan ra'yi laga yaabo inuu dadka qanciyo ama una qancin marka ismalihii labada meelood tashiga yaala xamar talada taala iyo Hargeysa talada taala ilaahay ka sokow u malayn maayo inay keenayaan wax lagu xaqabeelo labada meelood walaal laakiinse waxa muhiima in dowladda Djibouti fursad la siiyo in badan bay Soomaali u dadaashay oo carta waatii keentay waatii ka horeysay markii qalalaasuhu bilaabmay 1990 ay iskugu yeedhay dadka Soomaaliyeed marka maamuuska ay bixinayso inay qadariyaan way wax dadka Soomaaliyeed qanciyaan labadan qoloba ayaan rajaynaynaa inay ka soo baxdo walaal waayahay Professor marka ay timaado wadahadalladan Soomaaliya iyo Somaliland Djibouti ma tahay halkii ku habooneed oo dabcan kaga wanaagsan meelo kale in lagu qabto waxaban xasan oo arkanaa wixii cartahay keentay laakiinse Muqdisho lagu fashiliyay waxay keentay Djibouti oo kale in markii burburku yimid dad la iskugu keeno oo xamar lagu soo celiyo marka waxay Soomaalida u taala jamhuuriyadda ka socota Hargeysa iyo Muqdisho ka socota ayay u taala inay qadariyaan walaalaha Djibouti waxay Soomaali la doonayaan inay Soomaali midoodo in xaq lagu midoobo xaaraantii hore in laga baxo dunuubtii la galay in laga toobad keeno hadday iyagu dad wax yihiin qiimo leh iyaka maamuuskaasi ka midhadhalin lahaa laakiin ahmiyadda walaalkay waxa weeye dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba min Raas Kamboni ilaa Seyla waxay u haraadan yihiin maamul aan qabiilo ku dhisnayn maamul islaamnimo iyo Soomaali ku dhisan labada nin hogaaminaya labada meeloodna midkoodna ra'yigaasi ma curin karo walaal laakiinse waxaan filanaa inay fahmaan deelada iyo balambalka dadka Soomaalida haysta Hargeysa kuwa jooga iyo kuwa xamar joogaba oo arrintaasi dadaal weyn ka muujiyaan oo una nugnaadaan wanaaga dadka reer Djibouti ay la rabaan Soomaali walaal ku soo dhawow bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee waqooyi bari TV fadlan si aad u heshid wararka ayada fadlan subscribe saar jalasku waxa kuu sahlayaa inaad si fudud ka heshid wararka ayada mahadsanid waan hubaa wararkaanu soo gelino bogga aan ku leenahay YouTube-ka inaad ka heli doontid haddii ilaahay idmo wararka deegaamada waqooyi bari iyo Soomaaliya inteeda kale warar ku saabsan halkan ka hel daawadaha sharafta lahu mar kale hawdeema la'aan bogga aan ku leenahay Facebook
ee waqooyi bari t v si aad u heshid wararkayada isna booqo boggaan ku leenahay Facebook ee waqooyi bari t